waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa maanta kulankan noo suurta galay aniga iyo gudoomiyaha Cabdi Xaashi oo gudoomiyaha maxkamadda sarena uu isugu kaaya keenay in aanu ku soo afjarno doodii taagneyd ee ku saabsanayd hor u socodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliland alxamdulillaah rabbil caalamiin ismariwaagaasi maanta waa noo soo afjarmay hortiina ayaad arkaysaan iyadoo ilaahayna marxaati nooga yahay idinkuna marxaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis 4 qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Soomaaliland haddii ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin waan u hambalyeynaya waana ugu mahad celinayaa gudoomiyaha doorka shariifka maxkamadda sare ee uu qaatay adeerkii gudoomiyaha Cabdi Xaashina waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago caafimaad baan ku rajaynayaa iyo cimri dherer inuu ilaahay ku siiyo waa mahadsantihiin waxa kale oo ugu baaqaya dhammaan shacabweynaha Soomaaliland xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jihaystay doorasho kelmadda iyo hadalkuna waa noo dambeeya sida gudoomiyuhu yiri oo madal baan ka hadli doonaa wixii khilaaf iyo shuush ahana waa baxeen ilaahayna haynagu waafajiyo haynaguna garansiiyo inaynu tubtaa toosan ku socono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh